السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا داودا العشر كيدي صدحاد اللغة التركية. haddaba daawada haddaad ahayd mid si toos ah ula socday casharadii hore ku bishaarayso waxaad tahay qof luqadda Turkiga inuu barto danaynaya. Marka maanta casharkayga waxaan ku gurfayn doonaa sidii qof af Turkiga ku hadla magaciisa loo weydiiyo. haddaba intaynaan guda gelin casharka si aanay cashar dambe ku dhaafin waxaad subscribe garaysaa channelka dabadeedna waxaad taabataa halka yare beelku ku sawiran yahay si ay si toos ah kugu yimaadaan fariimaha casharka marka la soo geliyo YouTube-ka. haddaba qayni bilowno. maanta casharka waxaan ku soo qaadanaynaa sida qof af Turkiga magaciisa loo weydiiyo. luqadda Turkiga waxaa loogu hadlaa laba hab. habka koobaad oo ah sida rasmiga ah iyo habka labaad oo ah si aan rasmi ahayn. markaan leenahay sida rasmiga ah waxa weeye marka aad la hadlayso dadka ka waaweyn ama dadka aad ixtiraamayso aad doonayso inaad tusto ixtiraamkaad u hayso. sida aan rasmiga ahayn waxa weeye marka aad la sheekaysanayso carruurta ka yaryar ama asxaabtaada ama qof aad isku tihiin. haddaba qof ka weyn sidee baad u weydiin lahayd magaciisa? waxaad odhanaysaa adinisne magaca. adinisne waxaa jira dhowr hab oo lagu yiraahdo magaca. haddana waxaad odhan kartaa adoo luqadii Turkiga ku hadlaya adinis nedir magacaagu waa maxay? isminis nedir ad isim magac weeye micnaheedu labada waa isku micna. ad iyo isim waa magac. isim markaan leeyahay markiiba dhigtaada waxa ku soo dhacaya al ism oo ka timi luqadda Carabiga. waa isku mid isim iyo al ism ee luqadda Carabiga magac weeye. inis waxa weeye dabagalayaan oo af Soomaali waxa lagu yiraahdaa saddexan. nadir labadaasna waa isku micno. waxaan ugu jeednaa nadir waa maxay, maxay. nadir waa maxay iyo maxay ayaan ka wadnaa. haddaba aynu soo wareegno sida aan rasmiga ahayn. sidee baa qof kula ah aad u weydiin lahayd magaciisa? adin magaca. adoo luqadii Turkiga si wata waxaad odhan kartaa haddana adin nedir magacaagu waa maxay? ismin nedir magacaagu waa maxay? magacaagu waa maxay? markaad isdhaafsataan magacyadii waxaad odhan kartaa adoo si wata luqadaadii Turkiga tanıştığımıza memnun oldum. farxad bay ii tahay inaan ku barto weeye micnaheeda. laakiin badankii waxaan isticmaalaa barasho wanaagsan. tanıştığımıza memnun oldum isagoo ku jawaabayo qofkii Turkiga kugula hadlayay ayaa wuxuu odhanayaa ben de memnun oldum. anigaba farxad bay ii tahay weeye marka toos loo micneeyo. laakiin inagu waxaan isticmaalnaa barasho la mid ah. maanta casharku intaasuu inoogu eeg yahay. wixii aad su'aalo qabtaan waxaad noogu soo gudbin kartaan comment hoose idinkoo kusoo qoraya. haddii uu casharkan wax kuu faa'iideeyay fadlan noo subscribe garee ama gaarsii dadka kale ee danaynaya luqadda Turkiga. idinkoo mahadsan.